fadlan iska kaya astur waa mid ka mid ah xikmadihii ugu caansanaa ee laga soo wariyo majaajilaystii caanka ahaa ee lagu magacaabi jiray Juxa. Juxa ayaa loo doonay gabadh gayaankiisa oo ay isku deegaan ahaayeen si loogu guuriyo. Inkastoo aanu gabadha hara u arag, haddana waxaa loo sheegay inay aad u qurux badan tahay oo ay qancin doonto, noqon doontana midii uu muddo raadinayay. habeenkii markii loo soo galbiyay ee guriga loo soo galiyay ayuu arkay inay foolxuma ku dhantay. subaxdii markii waagi bariyay ayay gabadhii waxay Juxa ku tiri, "Juxow, nimanka qaraabadaada ah ii kala sheeg, kuwa aan iska asturayo iyo kuwa kale aan iska asturayn." Juxa oo qoslaya ayaa ugu jawaabay, "Dadkoo dhan u muuqo, laakiin aniga uun iska kaya astur."